iyadoo ay sii adkaanayso xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada Canjiid, Samakaab, Yagoor iyo Guumeys ayaa waxaa deeq iskugu jirta boorash iyo timir gaarsiiyay deegaanada Tuula, Samakaab, Canjiid iyo Guumeys. Axmed Caawad Baaruud oo ay deeqdaasi u soo wakiilatay hooyo Caasho Caawad Baaruud oo jirta dalka qurbihiisa, waxaana deeqdaasi ka faa'iideystay ku dhawaad 120 qoys oo danyar ah kuwaas oo ay markii xooluhu ay ka dhamaadeen ku soo ururay tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka Yagoor, Guumeys, Tuula, Samakaab iyo Canjiid ayaa dhamaantood ku yaalaan laamiga isku xidha guud ahaan dalka Soomaaliya. Hase ahaatee waxdaweynuhu noo xaqiijiyeen in aan wax taakula la gaarsiin intii ay jirtay abaartan wax marheebtada ah. markasta oo deeq la soo gaarsiinayo gobolka Sool ayaa marka hore waxa la soo dhaafaa oo ay arkaan dadkii dhibanaa ay xooluhu ka dhamaadeen oo gaajoonayo haraadan ayaa raashinkaasi waxa gudaha loo soo geliyaa magaalada Laascanood. waxay noo xaqiijiyeen dadweynahaasi noo cadeeyeen in deegaanadaasi in ilaa hadda muddadii ay abaartani bilaabatayba aysan wax quud iyo baad iyo biyo toona aysan ka helin gobolka Sool iyo meel kasta deeq la gaarsiiyo. haddaba shacabweynaha deegaanadaasi ayaa aad u dhiban waxayna u baahan yihiin in si degdeg ah loogu gurmado. Maxamuud Aadan Askar, Maxamed Guley, Somali News TV, deegaanka Guumeys.